Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada muuqaalka maanta. 30 talo nololeed oo kaaga imaanaysa oday xikmad badan oo da' noqday. Waxaan rajaynayaa muuqaalkan inaad ka faa'iidi doonto casharo nololeed oo aad ku anfici doona halgankaaga nolosha. marka ay timaado halganka rumaynta riyooyinkaaga maya jawaab ahaan weligaa ha u qaadan. Si taxadir leh u xusho qofka aad nolosha la wadaagayso. Halkaas go'aan ayaa ka imaan doona 90% dhammaan farxaddaada nolosha ama rafaadkaaga. Xusuusnow 80% guusha laga gaaro shaqo kasta waxaa go'aamiya inaad si wanaagsan dadka ula macaamisho. qiro qaladkaaga marka aad qaldanto waxay daliil cad u tahay shakhsiyadaada adag. Shaqada kuma daryeelayso markaad xanuunsato, qoyskaaga ayaa ku daryeeli doona. Qoyskaaga ayaa ah waxa ugu qaalisan ee aad weligaa nolosha ku yeelan doonto ee qoyskaaga xiriiri. Damac badnida waa talaabada ugu horeysa ee xagga burburka iyo halaaga. caawinta dadka kale uma baahno lacag ee waxay u baahan tahay qalbi diyaar u ah inuu caawiyo walaalkiisa. booqo asxaabta iyo qaraabada markay isbitaalka ku jiraan waxay qaadanaysaa oo kaliya daqiiqado, laakiin waxaad gudatay mid ka mid ah tiirarka walaaltinimo. daar shumaca, isticmaal barfuumka ugu wanaagsan, xiro dharkaaga ugu qurxoon. Ha u dibdhigin farxaddaada munaasabad gaar ah. Maalin walba oo cusub waa maalin qaas ah. jimicsi samee maalin walba, xitaa maalinta aysan ka ahayn inaad jimicsi samayso. weligaa ha u ogolaan qofna inuu gurigaaga ka soo baxo asagoo gaajoonaya. sii wax alla wixii aad wakhtigaas hayso. qof kasta wuxuu mudan yahay ixtiraam, hadduu yahay digtoor ama dhulxaaqe. ma jiraan wax ka muhiimsan inaad qadariso naftaada. weligaa iyo allaha ha ka tanaasulin karaamadaada. nolosha aad ayay uga gaaban tahay inaad wakhti ku lumiso nacaybka aad dadka u qabto. darawalka gaari ayuu kaxeeyaa, digtoorka dadka ayuu daaweeyaa, qoraagana wax ayuu qoraa. haddaad rabto inaad qoraa noqoto waa inaad wax qortaa. qoraanimadu waa ficil. ha barbardhigin noloshaada nolosha dadka kale, kama warhaysid xaaladda noloshooda. qofna mas-uul kama aha farxaddaada adiga mooye. adiga oo keliya ayaa mas-uul ka ah farxaddaada. fikradda ay dadka kaa haystaan adiga shaqo kuma lihid. qof walba fikirkiisa asaa leh, asaana maamula. kamana tarjumayso shakhsiyadaada qof kale fikraddiisa. adiga oo keliya ayaa si fiican u yaqaana qofka dhabta aad tahay. marka aad la ciyaarayso carruurta u oggolow inay kaa guulaystaan. ka fikir 2 jeer ka hor inta aanad saaxiibkaaga u sheegin sirtaada. baro sida loo aqbalo dhaleecaynta. dhaleecaynta ayaa ku siinaysa awoodda inaad qof ahaan korto. noloshu waa hadiyad ay tahay inaad furto. adigaa iska leh inaad go'aamiso haddii waxa gudaha ku jira ay kuu horseedi lahaayeen farxad ama murugo. waxaad awood u leedahay inaad go'aankaas naftaada u gaarto. waxbarashada waa xaq aad leedahay, kan ugu muhiimsan. baro wax walba inta aad awoodi karto. weligaa ha ka xishoon inaad weydiiso waxyaabaha aanad aqoon u lahayn. qof kasta oo noloshaada soo gala wax buu ku barayaa ee ku qiimee. u muuji ixtiraam qof kasta oo shaqeeya adiga oo aadan u fiirinayn martabada shaqadooda. dadka iska cafi adigoo u danaynaya naftaada. inaad ciil qof u hayso waxay la mid tahay adigoo sun cabay oo rajaynaya inuu qofka kale uu u dhinto. ugu dambayn adigaa dhaawacan. haa, waa sax, ma sahlana qof qaladkaa galay inaad saamaxdo, laakiin waxaad ka baranaysaa casharo muhiim ah. wax kasta oo aan ku dilin way ku xoojiyaan. inaad dib u dhacdo ma ahan guuldaro. dib u dhacyadu waa inaad dib u qiimayso oo aad hesho dariiqooyin wanaagsan oo aad kula tacaasho xaaladda. sabarka waa aalad awood badan. baro sida loo isticmaalo. ha isticmaalin lacag ka badan inta ku soo gasha. noqo qof adag oo geesi ah. marka aad dib u milicsato nolosha waxaad ka qoomamaynaysaa waxyaabaha aadan qabanin in ka badan kuwii aad qabatay.